faahfaahin ma noogu bixi kartaa caafimaadkiisa? والله الحمد لله سيده هور waa dhaamaa hadaya ka soo tagay hal saac ka hor ka soo tagay wuuna jiifay dhakhtarku soo sheegay ilaaha kuma darnaado sariirtaasina saaxadeed waa lahay ilaahay caafimaad ha noo siiyo walaalkeena sariirtaas oo isku jiifaa ilaaha kuma darnaado midda kale ilaahay caafimaad ma siiyo ilaaha kuma darnaado wadanka doorasho ka jirtay shalay iyo maanta dhakhtarka koowaad aan aadeynay hal dhakhtar ah helnay dhakhtar laba dhakhtar maqnaa oo mid uu yahay neerfaha midna dhinaca kaadi heesta oo asan dhakhtar gooni ah iyo midka qalliinka soo dhakhtarkii marka wuxuu dhahay ani kaliya wax ma qaban kari saddexdaas qof inay imaadaan waay halka qof aan laheeyay labada qofna waxay ku jireen shir isbitaalka waa ka soo tagnay isbitaalka la imaanay sidoo kale laba dhakhtar ah helnay hal dhakhtar maqnaa oo asana doorashada ku maqnaa marka alxamdulillaah ilaaha maadaas kale haduu ilaahay nafta nagu simo isbitaalka talaadada aad reebnaa haduu ilaahay nafta nagu simo waana bokon gareynay talaadada qaliino mara haduu ilaahay nafta nagu simo aan u soo duceeyno aan garab istaagno marka waa ka soo walaal macaan ما شاء الله إلى نوع في ويلك وعواي وقت جاءنا ذاتك كفى إذا استعاون وشيء تيم والشمسي ولا الموتل تيم والشمسي هداد كمتها وماشي كجرتو ويل سرير سارن وما أنت عافمات كيسة تام إهان وقال كيسة مرنا تجايو مرنا صلى ونايو لكن ماركت مرحلة هذا كجرا ماركت إن كفى إذا استانا اسكت ضيدين وأما جنبلان اللي تورود قارتين ما أنت وكل كلادهين حدو ما أنت ويلك واحد نقضه لكن أنت صديق لغا صوتكو أنا بوكان كماركتي يا dadka ugu madaba tagi jirin bukaan laga faa'iideysanayo waxa waa idinka dhaqan cusub oo la imaadeen waa Soomaaliya oo waliba Soomaalnimo aad maaragtay ku qaraabaneysaan horta asad waxa waa qof maaragtay lixdiisa lixaad aan dhameystirneen waaye qof haddana caafimaadkiisa oo sidii taam u ahaan waaye maanta qof inuu soo booqdo ama qof uu la hadlo waxa ka sokayso inuu maaragtay horta uu maaragtay oxygen-ka si nadiif ah u qaada karo maaragtay labada bishan isku toosi karo marka qof xanuunsan in laga faa'iideysto waa dambi weyn waana qalad weyn maanta inaad ka laabataan jeclaan lahaa tiim shamsi waxa waaye qaladaad ku socotaan waxa waaye dulmiyaad wadaan marka insha Allah waxaan siinayaa playboy wuxuu noqonaa waxyaabo badan oo iska noqonaa oo iska kaftan ah ma fahmaysin soo marka saaxiibkii marka socdaal arintaas uu ugu imaado asadna wuxuu dhahay saaxiib waxaas kelmadaas waa kelmad basiida hadaa aragtid waa kuu turjuma waana ku tusa hadaa qoraalkii akhriskiisa ka siisiin odaygii walaalkayga ahaa si kasta la yeeladada soo dirdirayeen dadka soo dirdiraya ilaahay subxaanahu wa tacaala og oo waxyaabo qaldan ay ka dhacdacsiiyeen oo kelmad xun ah marka socdaal marka arinta markay tahay asad muxuu dhahay socdaal walaalo macaano hadaa waxay la duwanaysa ani hadaa waxay iga duwanaysid imow gurigan imow qof ka xigtana malahan walaa qof ka xigin gurigan imow adaan iska leh baashaal xilliga rabtid ku boodbood xilliga rabtin imow kelmadaas asad mooye wax kale uu dhahay oo qaldan ma jiro marka saaxiibkay kelmadaas wuxuu si qalad ah lagu dhacdacsiiyay soo marka taas waa dhibaatada meeshay oo asad lagu faa'iideysanayo ama kelmadii uu ku sheegay waa la dilaa markii intuu ka keenay والله وبالله سمير مودريتر كواي مود قل أباي مود قل والله وبالله وتالله عاوة إنا نولانا إنا دمنا إلهي سبحانه وتعالى أك ما فهمتين كلمة داس والله إنا وحكي جيرين والله وبالله وتالله إنا وحبك جيرين جانجستر iska dhaafay booliis qof bin aadan u soo adeegsanayso kelmadaas ma jiro asiga waxaas meel inaa la soo buufiyo ma sheegi karo ilaaha og laakiin kelmadaas afkiisa inuu ka sheegay waa ogahay laakiin waa maqlay maya wuu yiri marka hal mid ku sheega fakir abo maxado hal mid jirto qofka Malaysia jooga oo inta askar loo soo wato booliis loo soo wato qarsooma abooyo yahay bal waxa la iska dhaadhicina fiiri qofna sababtoo rabana difaasiya sababtaas inuu YouTube loo furo oo bariiseeyo oo la dhaho
oo la dhaho waa la dili rabaa heer xaajiyo waa dili rabo beenuu ka suubiyey dadaana ka dambeeyo dad caana ka dambeeyo marka wiilashaas in la dhibaateeyo oo ummadda Soomaaliyeed lagu diraa la rabaa ma fahantay ninka odaga uu fahmi karaa anaa ku dhahayo warani Nairobi hadda fiiri wallahi hadalka horta ugu badan oo ka xumaado wuxuu ahay Big Bro erega oo soo dhaho asad lugihiisa ku istaay karaa leeno ku raadina war qof aqli leh oo damir leh waa Big Bro maxaa ka qaldan wiiga horta eregas oo u soo orana maxaa Big Bro damir adoo leeyahay asad soo kara ma dheelaane liibaan asiin mood gala marka liibaan ha hadla sigana madaxweynaha muddo soo bax dabcan waa fahmi karnaa dhibaatada maanta lagu wado dadka nii hor kacaya ummadaasna waxa waa dadaan qadiyad lahayn hadii runta laga hadlo dadaan bini aadamnimadooda micnaa oo ku gatay shilimaad yar ay maaragtay ay ka helayaan baraha bulshada idinkana kulay maanta uma baaridin difaac kale oo maaragtay ilaan sharaftiina iyo maaragtay magaciina waa la yaqaan sharafa leedihiin waxyaabo nadiif ah soo sameysaan oo content ah marka bilaash yaan maaragtay ninna uu dheyn waa liidil rabaa iyo waxyaabahaas waa dad la soo adeegsanayo dadka waxa waaye jambala loo soo tuuraa marba dhinaca wax laga tusiyaa haddii micnaha aan subscribe-ka inagu kari waayeen qof ayaa maaragtay threatening iyo waxyaabahaas ay soo tuurayaan waxay isku dayayaan dadka inay maaragtay dareensiiyaan inaad idinka maaragtay qof nafsadiisa aad daba socotaan marka wallahi waxaan dhihi lahaa dadka qadiyad la'aanta oo dadka noo soo horkacayo in laga taqallusaa fiican in iyaga laga soo horjeestaa fiican waayo meeshaan maanta waxa nilii haystana waxay tahay qabiil waaye qabiilka maanta nilagu haystane waa ficilo ay dadkiina ay bixiyeen waaye dadkiina sujuudi waaye dadka haddii loo sujuudi waayana waxa waaye dad badan ay maaragtay inay galaaftaan ay jecel yihiin marka maanta idinkeeni joogtaa insha Allah waxaan rajaynayaa inay maaragtay waxyaabahan ay maaragtay 2 days ama 1 day ay ku degi doonaan insha Allah waan garab taaganahay marka ku socdo dadka kala ma iga siinaya insha Allah okay dadka ugu gaabina dad badan aan sugaayo 560 hal mar loo sheegareeya waasina ilma adeer soo dhow ilma adeer yaal soo dhow qofkay u qoranta waa dhawahay walaalahayga waan islaam dhamaantii هذا كلام متكلي عرب سومالي محمد إنه أشجع وحيته يعني قف بالآدن أو ولا الكاجا يعني اللجوء قدرين ماشي واحد كجرا موجودين واحد عاي موجودين شيء كذا سيدا إكو سعته يسيدا إكوكو بلاوتي إسكومد معهن يعني اللجوء صادول جنبانين هبلاي محلو عاوين واي هبل إذن قدرتينو ودنتي وحس يعني اللوز يعني اللجوء صهوز جنبان وركبوا عاديه قف ما أنت بمنا إن أجلس ماشي سيكون كذا إلها نقفك سجعل هذا لكن سومالي محمد وحديه لهاي إن تاسي كسهور جيسته قف شلي ما أنت مجلس هذا إسكو ديدid إن دشيد أما تالنتيجيسه ما قرصوميسو يا قف هذا إسكو ديدid إن نية جبسيدني من يجبن كرتid قف شلي تالنتيجيسه وحكو كنسداي سومالي محمد دان أي كودا تاgeereen ku jeclaadeen يعني ما أنت hoos uma dhigi kartid يعني dad is haysto waxba igama galin laakiin muhiimadeeda waxa dhahay dadkan ka soo horjeedo walaalaheena team 27 team qarsoomay ma ahan soo hada isku daydid xitaa ina qarisid soo cirkaas jiraan iyo cadawgoodana ani cadow waa u arkaa Soomaali Maxamed aan waxba igama galin kaliya aniga iska hadlaayo taada kale nimada kaliya dhaay waxay tahay shakhsi yuunan ku soo dirin ya hay raaciyana noqonin sababtoo ay hadii maanta yani wax meel loogu tuuro meesha soo orda saas camal ha noqonina ya waxa idin dhihi lahay qof shalay si wanaagiisa ku taageertay maanta xumaan lagaga soo gudbiyay aanan ku arkin oonan nadartu dhihin ha aan subscribe ha u dhihina ha uga soo horjeesanina cadow ha u arkina qofka caawimaad asiga buu baahan garab istaag asiga u baahan ani kulli inta sadhihi lahay qofkana inuu daacad yahay in kalena wajigiisa laga arkaa dhaqankiisa laga arkaa wiligii qof haysta ma aanan arkin maanta ka hor waana sababta uga soo horjeestay dadka qaar ay ka cadow maya waaba siyaasad ba fiiri waa maasanta waa siyaasad waa fahanay ma sha Allah marka hal mar loo sheegay abay waa maasanta dadka kala siiyayna adoo raali dadka soo batay walaalaha kala siiyayna inuu wareysto hal mar inuu moodka iga soo baxaan rabaa aan wareysto xaaladda asad oo hadda ku sugan yahay waayo asagoo maaragtay sug walaal sug
waxaan rabaa bay walaal waad inaad hadashay ama aad anoo u sugayay sheekayso marka ugu markayga weeyaan sheekayso dadka inaad maaragtay xaaladda asad muudgal iimaan oo lagu tahay siinaahay waa inaad maaragtay aad noo dee way sheegi soo kartaa insha wareegtaa allah markayga mk maraysay mike aadaan ku siinaa nidaamka ilaal waa lagu siinaa muudgal